بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسو دوادا موقال كان عصب وحان وهل دونا إن شاء الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا سدح ذي قفوت أول الدبلغي وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس سورة التوبة أو توبة كدبنا أو كأقبلي سدح قفوت إلهي قرآن كريم كأهمق عودكم الشيقين بل سي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أي إنو الشيقين سدح قفوت سببت التوبة الدبلغي خصدو دي انتيك بلاوتي محاسة كدعي سدح سحابي واي أو مقعود لك اللي يراهدو كعب ابن مالك، هلال ابن أمية، مرارة ابن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. كعب ابن مالك أيا شاكينا يا مركب حوليه هي دولانكي تبوكا أيا النبي صلى الله عليه وسلم إعلاميي مركاسو وحو يريد قال كاسا لبحيايا هل ازدياريو خفل با هبكيسا فرستيسا هسي ديار صدو. كعب ابن مالك وحوليه هي النبي صلى الله عليه وسلم وليgiisa asagoo dagaal u socda ma uusan sheegi jirin meesha uu u socdo hadduu bari u socdo xageeda wuxuu dhihi jiray waqooyigan u socdaa asagoo gaalada meermeerinayo seesan xagga uga hormarin ama aysan u baraarugin laakiin dagaalkan Tabuuka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu sheegay in Tabuuka uu socdo oo duulaanku qaadi rabo sababtoo ah meeshu way dheereed loo socdo xilligana xilli kulul ay ku soo aaday oo aad u kulul jabiga marka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sheegay si la isku diyaariyo oona qofkii soosan isku dhihinba meeshan dheera loo soo socdiyay maxaan loo sheegi waayay meeshii dheereed nabigu wuu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hal is diyaariyo hadaba Kacb ibn Malik wuxuu yiri maalin walba suuqa aadaa waa is diyaariyaa markaan is diyaariyo kadib ayaa hadana suuqan taga wax soo gadaan isleeyahay waa soo laabana suuqan taga wax soo gadaan isleeyahay waa soo laabana ugu dambeyn maalintii la baxaya la gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam ciidankiisii waa baxeen markay baxeen oo meeshii Tabuuka ahayd la tagay oo la degay oo safarkii laga furtay ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam Kacb ibn Malik aabe wuu waayay markaas nin saxaabada kamid ahaa wuxuu yiri rasuul Allah كعب ابن مالك وحا مشغوليي دركيسا معناه اسفيرفيرن iyo isku mashquulay ba saasu soo bixi waayay nin saxaabada kamid ah wuxuu yiri bi'sa ma qulta waxaad ku hadlaysid waa hadal xun iyo iska dhaaf rasuul Allah anaga ma ogni Kacb ibn Malik wuxuu u haray anaga ma naqaano Kacb wuxuu yiri waan soo baxaa magaalada Madiina dhex wareegaya markaas wuxuu yiri hal qofood fiican kuma arko munaafiqiin iyo kuwa loo cudur daaray yani oo ilaahay cudur daaray oo dad wanaagsan ah laakiin ilaahay wuu cudur daaray laakiin dadkii wanaagsana oo dagaalami kara ma ku harin meeshii munaafiqiin iyo dad loo cudur daaray joogo bis ugu dambeyn nabi sallallahu alayhi wasallam waa soo laabtay dagaalkii wuu ka soo laabtay markuu soo laabtay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu caado u lahaa markuu soo laabto masjidka ayuu ka bilaabi jiray gurigiisa ma uusan aadi jirin saasana fiican qofka markuu safar ka yimaado in masjidka uu soo maro haduu masaajidka uu dhow yahay ama uu heli karo inuu laba rakac ku tukado masjidka uu salaamo nabi sallallahu alayhi wasallam asoo masaajidka fadhiya ayaa Kacb ibn Malik u imaaday markii Kacb markuu u imaaday wuu soo galay assalaamu alaykum uu dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maxaa ku reebay ii sheeg markii islaanta laga qaaday kadib maxaa ku reebay dagaalka maxaa ka reebay ii sheeg Kacb ibn Malik wuxuu yiri rasuul Allah qofa adiga ahayn maanta hadaan soo hor fariisan lahaa oo su'aashan u weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa wuxuu yiri ani aftahana ahayo dhahay waxaan uu baxsan lahayo dhahay yani aftahanimadeeda been iyo waxaan isku dari lahaa iyo aftahannimo laakiin maanta wuxuu yiri adiga noqotay adiga maanta hada been ku sheego Jibriil hadda soo degayo wuxuu ku leeyahay beentiisa waa ninkan ee rasuul Allah aniga wuxuu yiri cilad ima haysanin cudur daar la'aana u haray nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri amma hada faqad sadaq ninkan runbu sheegay istaag ayuu yiri bax
ilaa arintaada ilaahay uu ka xugminayo wax hadal ah nagama dhaxeeyo. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo saaray wareegta ah ninkan inaan la hadli karin. Kacab wuxuu yiri kaligeela isku maleynaaye markaan soo baxayaan waxaan ogaaday uu dhahay laba kale in ila jirtaba hooshan oo ayna aysan bixin saxaabo fiican ay ahaayeen ahaayeen Hilaal ibn Umayya iyo Murarah ibn Rabi'. saddexdeeni wareegto waxa soo baxday inaan nala hadlin nala macaamilin. Kacab wuxuu leeyahay waan soo baxayaa magaaladan soo dhaxmara cid salaanta ka qaad salaanta cid qofkii aan salaamo salaan igama qaadayso. qofkaas iga sii jeesana qofkan hadal ku bilaabo hadal iga sii jeesana. nabi sallallahu alayhi wasallam shaahidka uu imaana salaanta igama qaadayo agtiisan ku tukana waxaan isleeyahay ama ku soo fiirina salaada markaan xirto oo aan sii jeesto nabi sallallahu alayhi wasallam uu soo fiirina xaqiiqo soo fiirina aniga markaan xaqiis u sii jeestana uu sii jeesana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waan wareeray maalmo badan markii wuxuu yiri 40 maalin in ku dhawaad ee hoosh ka soo wareegatay oo cariiri aan ku jirno wuxuu yiri waraaqa itimid waraaqdaasi ninba suuq dhex wareegaya wadahaya yaa yaqaan Kacb ibn Malik yaa itusiya duluni ala Kacb. ninkii la ii keenay maxartaan iri wuxuu waraaqan ku wadaa waraaqdii aan akhriyay boqor oo gaal ah oo Malik Ghassan meesha Ghassan la yiraahdo oo boqor u ahaa aaba soo qoray oo Christian ahaa muxuu yiri Kacb waa maqlay adii saaxiibkaaga Muhammad inay isdagaasheen oo ay isku dhacdeen oo lagu gooyay xiriirka lagu jaray warniyo anaga inoo imaw anaga ku soo dhaweysanayne. Kacb inta fiiri waraaqdii wuxuu yiri wallahi tan wuxuu yiri imtixaanka kamid tahay oo dhahay waraaqdii uu qaaday wuu jeexjeexay dabku ku riday waa adigoo martiqaad aad ka heshay waa dawlad weyn oo Yurub ama Mareykanka oo kala ah adoo ka heshay waa martiqaad oo aad diiday. markaas Kacb wuxuu yiri saan u joognay wuxuu Abu Qataada u tagay in adeerkayga ahaa beertiisii wuxuu yiri darbigan u fuulay waa u galay. markaas waxaan Abu Qataada shuu iga dhahay markaas waxaan Abu Qataada soo ma ogid aniga Ilaahay iyo rasuulkiisa inaan jeclahay. markaas wuxuu dhahay Ilaahay iyo rasuulkiisa og waan yaabiyo dhahay in adeerkayga iga sii jeestay ciriiriga igu batay cidna la hadlaysa male anagoo ciriirigaas ku jirno oo yaaban dhinac walba nalaga soo xirxiray hadan nabi sallallahu alayhi wasallam wareegta kale soo saaray oo ah xaasaskiina waa ina ka tagtaan guryahooda u dira ma fureena maya furiin ma aha laakiin xaasaskiina ma idin la noolaa karaan waa ina kaliina noolaataan. Kacb ibn Malik wuxuu yiri xaaskaygan u tagay waxaan iri haye wax ma maqashaa dharkaaga inta qaadatid guriyahooda iga aad imtixaanka dan waxa soo baxday in oo xaasaska laga tago. Hilaal ibn Umayya xaaskiisa u timid nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay dhahay rasuul Allah Hilaal ibn Umayya waa yeel waaye wax ma qabsan karo aan la joogo lebis. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waayahay la joog laakiin yuusan ku soo dhawaanin oo haweenkiisa wax ka soo raadinin jirka ka ilaasho ama maalinba wixii rata ha ahaato. markaas wixii tir rasuul Allah ninkaas ma baan idamcaya leedahay maalintii adiga xukunkan soo dejisay oo yaani wareegtadan soo saartay waa maalintaas laga bilaabo meel iska fadhiya 40 maalin ka badan ay soo wareegatay maalintaas ilaa maalintan wuu oynayaa oo hin ayu meel la fadhiya ma asagaaba dumar iyo xaas iyo baashaalkoodii iyo waqti u haayaba aniga waxaan rabaa kaliya inaan u adeego iska waayeel waay ii ogolow rasuul Allah. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu waayahay waa u adeegi kartaa laakiin labadii kale dhalinyaro ahaayeen xaasaskooda way ka tageen ayagoo saas u joogaan ciriirigaas loo taagan yahay cidna aan la hadlaynin 50 maalin u dhamaatay 50 maalmood waa bil iyo 20 beri oo aan lagu la hadlaynin ka waranba magaalada aad degan tahay cidna aan kula hadlaynin qof walba aad la hadlaysid ka sii jeesanayo xaaskaaga ka tag lagu yiri walaalkaaga salaanta ka qaadeenin ciriirigaas ayagoo ku jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay tawbadoodii inuu ka aqbalay ee run sheegeen oo Ilaahay wuxuu yiri markuu soo tiriyay ansaartii oo saacatul usra xilligii saacada adkeed dadka ku raacay
إلهي وكتوبة أقبلي سوء سودي إلهي محيري وعلى الثلاثة الذين خلفوا سدح ذي دب لو دغاي يعني سدح دان قفوت وركودي دب لو دغاي إلهي لغا ورسغاي إلهي وحير دولكا لو عريريي وانا صح waa konton maalmood lagu la hadlaynin ciriiri waa dhulka lagu ciriiriyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulka asagoo waasaca hadana ayga ciriiriyo ku noqday Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadaas markuu soo dejiyay Ka'b ibn Malik wuxuu yiri aniga ma ogeen gurigeyga iska saarnaa kor anoo iska saarno yiri nin soo cararay oo ii imaaday xaqiiqo soo cararay markaasa wuxuu yiri Kacbow bishaareyso maalintii hooyada ku dhashay ilaa imaantan bishaar aadan weligaaga arkin bishaareyso asoo kheelinayo ninkaas soo cararayo bishaareyso isagoo dhahayo Ka'b ibn Malik wuxuu yiri koran saarnaa waan dareemiyo dhahay in oo nabi sallallahu alayhi wasallam wax lagu soo dejiyay waan soo degayo dhahay labadii shay aan watay ninkii hadii aan u siiyay go'i iyo macwiistii aan watay ayaga kaliyaana haystay oo aniga marka ayaga kaliya la haystay markaas wuxuu yiri aan siiyay ninkii masaajidka aan soo aadaan rabay dhar ma haysta ba aniga labadii shay guriga iyaalay asaga ma siiyaba diriskan wuxuu yiri aan waxaan ka amaahaday dhar waxa dhar ii dhiiba aan ku soo laabtay dharkii aan soo qaatay oo dhahay waa soo cararay markaan soo cararay oo dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam oo imaaday saxaabadiisa iyo asaga oo masaajidka ku jiraan kulligooda meesha fadhiyaan markaan galay oo dhahay Abu Talha isoo istaagay oo dhahay saxaabi Talha ibn Ubaydillah isoo istaagay oo dhahay xabadku igiliyay waa ii hambaliyay markaas wuxuu yiri bishaareyso maalintii Ilaahay maanta bishaaro weyn haysata Ilaahay waa ka toob aqbalay markaas wuxuu leeyahay Ka'b ibn Malik aniga weligeyga wuxuu yiri arintaasi wuxuu ma iloobi doono Talha sida macnaha oo aniga uu ii hambaliyay aad bay u fiicneed oo dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam oo tagay oo dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam aayadihi uu dul akhriyay aayadii aan toobadeedii wala ii sheegay oo dhahay sidii meeshii Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobadeedii soo dejiyay Ilaahay wayga dhamaanteena wanaga tooba aqbalay aniga iyo saddexdeedii labadii saaxib Ka'b ibn Malik Hilal ibn Umayyah iyo Murarah ibn Rabi' saddexdoodii Ilaahay waa ka tooba aqbalay Ka'b ibn Malik wuxuu yiri rasuul Allah aniga wuxuu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobadeeda wuxuu igu aqbalay inaan run sheegay run aan ku badbaaday soo ma aha aniga wuxuu yiri maanta kadib waxa liigu ogyahay oo dhahay runta la inaan sheego bis wax kale aan sheegin ba marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka tooba aqbalay Ilaahayna wuu ka farxiyay runta waa fiican tahay mar walba in la sheego maxaa runta waa lagu badbaadaa jannana waa lagu galaa saxaabadaasi saddex saxaabi xiriirigaas ee galeen Ilaahay wuu ka badbaadiyay Ilaahay wuu ka tooba aqbalay waa qisarun ahaantii xanuun badan Ilaahayna subhanahu wa ta'ala runta wuu jecel yahay Ilaahay wuxuu leeyahay kunu ma'a saadiqiina dadka runta sheegay ka mid noqda xaaladda si walba ay kugu adag tahay si walba ay jiq ay kugu tahay waa ina run sheegtaa hadaa run sheegto waa ku badbaadaysaa axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam kulligood waxay sheegayaan in qofka mu'minka ah uusan been sheegaynin waa la weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam xaliiri qofka mu'minka ah wax ma xadi karaa oo macnaha ma dhici kartaa inuu wax xado waa dhici kartaa ma dhici kartaa inay zina ka dhacdo waa dhici kartaa inay zina ka dhacdo laakiin qofka mu'minka rasuul Allah ma dhici kartaa inuu been sheego maya ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ma dhici karto inuu been sheego iimaan haduu qalbigaaga ku jiro been ma sheegaysid beentaasi ayada ka difaacayso wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh